waxaan rabaa halkan inaan kale oo raacsado inaan u hambaliyeeyo ciyaartooygii Soomaaliyeed runtii guushi wanaagsaneed ay ka soo gaareen ciyaarihii 17 jirada ciyaar wacan bay soo bandhigeen laakiin nasiib ciidun baa badin lahayd Tanzania badisay iyagu marxaladda ay gaareen waa marxalad intii dhowr iyo 20 sanadood wali ummadda Soomaaliyeed aanay gaarin taasi waxay ku tusinaysaa iftiinka qarannimo ee dawladnimo ee midnimo ee u soo socota ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay midnimo waxaan leeyahay waxyaabaha soconaya yaan loo jilcin loo dabcin isku tiirsanaantii iyo Soomaalinimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed in laga wada shaqeeyo xukuumadda federaalka iyo maamulada ka midka ah dawladda federaalka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya iyo Soomaaliya xitaa kuwa aan ka midka ahayn sheeganaya inaanay ka mid ahayn Somaliland waa Soomaali dhibta haysata iyo qaraxa muxuu ahaa sicir bararka iyo siyaasaddan qallafsan iyo ummadiyo laysu diiday ama la kala xidhay oo maalin walba la leeyahay intaasoo diyaaradood iyo intaasoo gawaari yaa ka baxaysa dalka runtii kuma faraxsanin laakiin waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba isku mid weeye ama Seyla ha joogo ama Kismaayo ama Calowle ha joogo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba farxadeeda iyo midnimadeeda iyo dawladnimadeeda iyo qarannimada yaa ummadda Soomaaliyeed wax ku noqonaysa Allah inoo xafido Allah inoo siyaadiyo